كهرمري دالكي هيشي روح دلي نظامكي هايبدي هوريغا ويان كوكوبا ورتيسا حشيشكا أورا كهرمري دالكي هيشي روح دلي نظامكي هايبدي هوريغا ويان كوكوبا ورتيسا حشيشكا أورا هاجاتي دنكاغا شعبكيغو الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. waxaanu joognaa xaafadda Sheekh Cismaan waxaanu wali ku guda jirnaa ololihii uu iclaamiyay gudoomiyaha gobolka oo soo bilaabmay 13 bisha 2025 kaasoo laba maalmood ka horna ololahan ka fulinay xaafadaha Sheekh Ali Jawhar agagaarka Balaga Boore iyo meelo kale oo fara badan. shalaytooda waxa dhacay ololihii ugu weynaa oo uu iclaamiyay gudoomiyaha gobolka oo ay ka soo qayb galeen guud ahaanba laamaha wasaaradaha heer gobol iyo dhamaanba bulshada ku dhaqan degmada Boorama gaar ahaan ay ka soo qayb galeen afarta gudoomiye degmo hoosaad. shalaytooda ay ololahaas si weyn u dhacay maanta ay bishu tahay 14 bishii labaad 2025 wali waxaanu ku guda jirnaa ololihii waxaanu ka fulinaynaa xaafadda Sheekh Cismaan waxaan filaynaa insha Allah in ololahaas noqon doono ololo joogto ah maanta oo inoo tahay annaga ka shirkad ahaan horseed ahaan maalintii afraad waxaanu ku guda jirnaa ololihii waxaad saad arkaysaan ba wali waxaanu wadnaa olole baaxad ballaaran leh annagoo ku qalabaysan qalabkeegii loogu talagalay ololaha nadaafadda waxaan bulshada u dirayaa fariin ah in qofkii fakriyo formal dhaqdee in la shaqeeyo shirkadda nadaafadda horseed. bismillahir rahmanir rahiim. awalan ilaahay baa mahadle suuqa keenaa anagoo caafimaad qabna sidaa uu hore u sheegay waxa weeyaan maanta halkan waxaan joognaa ololihii shaqo ololihii nadaafadda in magaalada ka socday maalmahanba taasi oo annaga maanta nagu beegan maalintii afraad ama saddexaad iyadoo ay taariikhduna ku beegan tahay 14 bishii labaad 2025 waxa weeyaan nadaafadda iyo deegaankeena ama inagu baxo markaa ama inagu baac waxa weeyaan qashibi karnaa waxa la Soomaaliya waxa tiraa inta qashinku ku jiro ayuu cudurku ku jira taa micnaheedu waxa weeyaan qashinku markuu ku dhow yahay mar walba waxaad risk ku jirtaa ama halis ku jirtaa inaad xanuun qaado ama cudurka ka qaado sidaa darteed bulshada waxaan ugu baaqaynaa in iyagu ay ilaaliyaan nadaafadda deegaanka oo ay ka taxadiraan qof walbana waxa weeyaan sababta kaliya lagu ilaalin karaa waxa weeyaan in gurigaaga qashinka waxa weeyaan gaadiidka shaqada nadaafadda horseed ayaa kugu imanaya gurigaaga hortiisa meheradaada iyo goob kasta oo maxaa ku dhashay ayuu kugu imanayaan sidaa darteed waxa waajib u ah inaad qashinka baabuur ka saarto qof kasta oo qashinka gaadhiga saari waayana waa dadka tallaabo sharci waafaqsan baa laga qaaday haddii la yiraahdo waxaan bulshada ogeysiinayaa in lagu dadaalo nadaafadda deegaankeena muwaadin adigu qayb ka noqon nadaafadda deegaanka aad baad mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.